السلام عليكم ورحمة الله تعالى soo dhawaada daawadayaal waxaa maanta magaalada Jigjiga soo gaadhay taliyaha ciidanka Itoobiya General Burhan Jula isagoo ka qayb galayay munaasabadda sanad guurida ciidanka bariga Hararge ee Itoobiya arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay intii dabaaldegii macnaha ama sanad guuridii halkaas ay socotay madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar ayaa halkaa khudbad ka jeediyay Mustafa Maxamed Cumar baa wuxuu sheegay in ay difaacayaan Itoobiya oo ay u dhimanayaan oo wixii siyaad barre uu ka geystay waddanka ay saban ka dhacay aysan ka dhacaynin mar dambe waddanka difaacna ay yihiin Soomaaliyana ay cagta marin doonaan buu sheegay Mustafa Cagjar wuxuu ka soo baxay dhufayskii Soomaalinimada toos uga soo baxay maalin ka hor ayay ahayd markii taliyaha ciidanka iyo booliska deegaanka General Gafaydhe iyo hoggaanka nabadgelyada Dayax Maxamed Nuur ay dhaheen waan difaacaynaa deegaanka ma aha ee waan difaacaynaa bay dhaheen ciidanka Itoobiyana waan garab taaganahay bay dhaheen wax alla wixii daandaansi nala yimaadeen cagtaanu maraynaa bay dhaheen Mustafa Cagjar iyo tiimkiisu waxay si toos uga soo baxeen dhufayskii Soomaalinimada Mustafana dagaal gashid ma leh Gafaydhina dagaal gashid ma laha Dayibna dagaal gashid ma laha waxaa ayaaman xiisadeedu ay aad u taagan tahay arrinta Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Masar iyo Itoobiya oo ay ka dhaxayso xilafta waayaan bay ka soo dhaxaysay soo socotay wabiga Niilka ka dhalatay Soomaaliya waa tii Masar heshiiska la gashay ee tirsalgii ciidamada ka siinayna qaybi ugu horreeyeen ay keentay meesha haddaba arrinta halkaas ka socota waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa haddii hadda lacalaaba dagaal u dhaco oo dhibaato halkan ka bilaabato waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa dadka iyo bulshada deegaanka Soomaalida ku nool Soomaali galbeed iyo halkaas saameyn bay ku yeelanaysaa halkaa aad iyo aad u xoog badan taliskii ciidanka ee bariga Hararge waxaa loo soo raray magaalada Godoy ee deegaanka Soomaalida soona xigta xadka Soomaaliya halkaas ayaa loo soo raray taliskii ciidanka ee bariga Hararge Itoobiya halkaas loo soo raray taas kaliya ma aha waxaa magaalada Feerfeeri laga dhisay isna talis laba toddobaad ka hor halkaasna waxaa laga dhisay talis weyn oo ka mid ah ciidanka Itoobiya waxaana diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ay ka iibsadeen dowladda Itoobiya Turkiga ay iibsatay kula diriirsay Tigreega waagi dhexdaas waxaa dhammaantood la keenay Godoy ilaa Feerfeeri aag oo dhan baa la keenay dhinacaas iyo Tigreeg iyo aagoodii dhan waa laga soo raray iyo wajahadaas oo dhan arrinta haddaba xiisadda leh deegaanka Soomaalida dadka ku nool bulshadani haddii meesha dhibaato ka dhaco ma faa'iido ugu jirta inay jiraan taas hadduu istaagi doonaa ma faa'iido ugu jirta mise uguma jirto sax ma tahay inuusan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu ka hadlo maanta arrinkaas oo uu horay u soo fadhiisto oo uu deegaanadii kale oon hal midu hadlin iyo cid jawaabtay toona uu horay u soo fadhiisto ma sax baa horta inay sax tahay in kale arrinkaas inuu sax yahay in kale daawadayaasha ayaa kasoo jawaabi doona kumintiga nagula wadaagi doona qof walba aragtidaada bal arrinkaas ma sax baa mise ma aha qof walba fikirkaaga arrinkaas kumintiga kasoo dhiibo aniga aragti ahaantayda in Mustafa Maxamed Cumar uu horay u soo fadhiisto iyadoon lagaba yaababa inaysan dhicin dagaalba uusan dhicin oo waxaani la heshiiyo oo waxaani uu durba iska dhammaado inuu cadaawad beerto oo dadka Soomaaliyeed uu isku diro oo u hanjabo oo uu Soomaaliya u hanjabo inuu la dirayo inuu la dagaalayo kulay aniga aragtantayda sax lama midda kale wiilashan yaryar ee new booliska iyo deegaanka meel kasta dabka lagu shubay xabada looga dhigay awalba baabi iyo Mustafa Cagjar oo Tigreeg iyo waxaan ka jiraa canfar iyo halkan tuu dhaxaysa u galiyay way xaaqameen waxaan weligood ku dhicin baa ku dhacay halkaas ciidanku ku jabay Mustafa Cagjar inuu maanta hore u soo fadhiistay oo hanjabo oo dhaho wixii sabankiisiyad barre uu ka geystay meesha marda ma dhacayso waan difaacinaa deegaanka iyo waddanka waan u dhimanaynaa deegaanka iyo waddanka horta inaad difaacto macnaha waa sax laakiin meeshan deegaankii iyo Soomaaliya isma hayaan laba dowladood saddex dowladood baa sayay si marka laga soo tago Masar laba dowladood baa sayay waa Itoobiya iyo Soomaaliya
arrinka Ethiopia iyo Soomaaliya waa federaal adiga maamul yar baa tahay gobol yar baa tahay goboladaas deegaanka ka Ethiopia ka tirsan aad ka mid tahay meel Tigray oo hadlaysa ma aragtay Anfar oo hadlaysa ma aragtay Oromo hadlaysa ma aragtay Benshaangul oo hadlaysa ma aragtay Gambeel oo hadlaya ma aragtay waxyaabo dhan oo hadlaya ma aragtay waa may sababta maxaa hore u soo fariisiyay Mustafa Cagjar hore u soo fariisiyay oo waliba xataa hadda maanta taliye ciidanka yimid ee barnaamijka yimid oo halkaas khudbad buu ka jeediyay Mustafa Cagjar ka hor 2 maalin ka hor iyo maalin ka hor ma waxay ahayd كفيلة تريح عينك اللي يبولس كي يهجن رمت قلوا حشة إن الدفاع ينتهي كأنه لما نجان سومالي وحالهم كمان بتشغلنا أكثر يمرنا يا بالشيء أركاسي أنا قصح لما على ود إن بيرتو وضدك الصوماليات وتمر أي شوجان بكو هالك شوجا ده شوجتان يسوون كوا صومالي هالك شوج اسمه دويس واحد أكل الدول واحد أكل صو عن تونا متشرو فكرة أهلنا sida Ethiopia kuwan ay nacibin bay kuwaas u nacibin kuwaas ka sinacib nacaybka Ethiopia kuwaas ka sinacib kuwaas yaa la diray ilaa 40 intaas sano la diray oo ilaa hadda gumaysigii xoog ay ku haystaan marka maanta ina dhahaan oo dadkii aad u soo hormartaan oo dhahaan waxaan difaacaynaa Ethiopia oo dhibanayna arrinkaas khalad bay aniga ila tahay waa arrin khalada Mustafa Cagjar Soomaaliya oo hanjabo inuu dhaho waan la diraya arrinku waa federaal meesha dawladda iyo qodobo weyn halkan iyo meesha ya haysta arrintuna hadda xabadba ma gaarin ba meel maamul iyo gudoomiye yar oo gobol oo deegaan haysta iyo meel uu ka soo hadlo arrintu ma joogto wali diblomaasiyadda arrintu maraysa oo la isu eryanaya oo la isu ceyrsanaya sababta Mustafa Cagjar dabada ka soo riixday degdeg ee Soomaalida nacaybka uu beeranayo uu hanjabay oo leeyahay waan difaacinaa Soomaalina ma rabno waan kurgan ka gurayna arkaas qalweeyeen Soomaalida waa isku mid kuwa halka jooga kuwa halkan jooga isku Ethiopia u nacbihiin Ethiopiana cid ay faa'iido ugu jirto ma jirto deegaankaasna gumays iyo xoog bay ku haystaan wallahi kala laga dadso kala loo shido marka meel maanta laga hanjabay iyo meel laga barqalay iyo meel wax laga sheego ما جيت مانت كل أنا أركت هانتي خلط بان كل أنا أركت هانتي تذكر ويسوي شيء دونا بل أركت خلط يهيو إنه صحيح ويسوي شيء دونا تذكر يديكون صار شيء بالكوميتي نقول سوى ذاك وهو هنشبه وعندك كاس شعب كعيد عندك مساكين تيجي ولا شهير اللي يبرسكي وحاسين هدي الدجال نوعي وتدعى المرك الرئيس ما يجي حاول لقى دقو ماشي أنا ما من قبل يو deegaan yar iyo baalka toos midreeyaan dawladda waaweyn baa is haysta isu hanjabaya isu hawada wax isu marinaya qabda bilbaasiin dagaalamays kama dhicin laakiin colaad inaad beerato iyo mataqaana cadaawad aad beerato dadka Soomaalida cadaawad kala dhex dhigto oo dadka loo kala waxay aad iyo aad beerinkaas khal u tahay arrinkuna arrin deegaan shughul kula ma aha waa arrin maxaa markii wax dhacay Ethiopia wax ka dhacay maxaa deegaanka Soomaaliya horta hore Soomaaliya soo deegaanka Soomaaliya iyo dadka ku nool maxaa horay ka soo dhiga oo waardiga soo fariisiyay Tigray been ogeeyna marka Tigray Ethiopia la dirisay gawaadhi inta laga buuxiyo baa la yaaciyay halka la geeyay wiilasha Soomaalida hal qoomiyad iyo hal deegaan iyo hal meel kale oo loo yaaciyo meesha la geeyay ma jirto Soomaalida baa la direeriyo waxaan iyo meesha jooga noocyada aad baan islaamiya muuqaalkan soo gaarsiin shagraya oo meel fog hal gaarsiiyo loo geeyay Mustafa